السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta qisadeyda aan ka hadlayo barnaamijka waxay ku saabsan tahay gabar walaal ah oo u dhoortay dalka dibadda dhunta xanuunta subax walaalayaal sinjibish qoynada cunaa voice-ka ay dhumo markaas soo kaco I don't know waa garana keensa waa soo noqday marka gabar walaal ah ayaa waxay maatay dalka waxay gashay dibadda u dhooftay waxay ka tagtay walaalaheed oo aad u ah sabool markay tagtay waxay bilowday gabadhi shaqo way shaqaysay reerkii waxay kasoo dhoofisay 2 qof guryo u gaday hooyadii nool xajkii geysay hooyada kadib way dhimatay walaalihii aaday u gacan qabatay way biili jirtay wax kasta u qaban jirtay gabadhii markay wadanka galayso ofiska xoogaa dhalinyaro ahayd sida ii sheegtay waxay tiri 30 aan ku jiray markaan tagay ma guursanay tiri shaqaan bilaa family-na wax taro family baahan oo dhibaataysan ka soo tagay inaan wax taro waxay tiri anida gashtay tiri marka iyaga caawinay oo wax taraayay kadib waxay tiri markii aan qof yaro weyn noqday ayaa waxay tiri guursaday markaan guursaday inta hooyada dhimanay imaaday waxay tiri dalka hooyada marka waxay dhiijtay tiri gabadha walaashayna sabool qabo soo biil dhaqaale waalidka qaarkood waxaad aragtaa tiri in ay ilmahooda kala ku dulmayaan marka hooyada weligeed ma dhihin tiri guurso wax qabso adiga bal nolol samayso adiga waa daashimaan reer samayso midna way walaalaha gabadha ka yar walaashay ninkeeda wax ma haysto soo biil wiilka walaalka u guuri halkan jooga maxay ahayd waxaas un bay hooyo igala hadli jirtay tiri anigii markii dambe waxaan noqday tiri qof weyn markaan imaaday Afrika waxaan imaaday beetir walaashay oo ma sha Allah waxay tiri quruxday ku jirtay yaabaysid noloshay ku jirtay ciyaal waxay tiri xataa lacagta waxaan u diri jiray tiri maxaa ka galay waxaan arkay bay tiri ayadoo koomba intaa la u dahab haysato anigana hooyada waxay dhigtay xamaysato u soo dir kan hooyo waxa ma aniga naagtan iyadaaba nolol samaysto nin qabaan uu nolol ma samaysanine qof weyn aan noqday saan u shaqeynay reerkan waa ku daalay oo ku habaariya hadaa ducadeeda rabtid ha ka hadlin gabadha walaashay ka hadlin way ka yartahay waa ilmo yar oo miskiin ha ka hadlin bay dhigtay marka waxay tiri walaashay waxay maadirtay koomba daabaysato waxay tiri nolosha ku noosho ma sha Allah ayaa bisneed markaan ayaamo soo martay waxay ugu dhahday tirnaaya wad weynaatay maxaad u guursan weyse tiri maxaan guursadaa adika inaan biilayo afar ka sac waxaan halabeen siinay waxa qabatay ma jirtee yaa wuxuu qabatay iska guursadaa la qaatay wadaga habartu gaboobay adoo waxay sameeyay dibadda intaas ay jirtay aawal lacagta haysatay bangiga lacagta ka soo fak walaalayaal waxa ma haysto inta haysta wadika igu biilay waxaan haystaa ma jiraan waxay tiri reerkii walaalada aniga baba qosay ugu dhaqaaqeen tiri waxay dhaheen tiri dibadda intaas ku maqnayde maxaa ka wada awal cagta wadata waa dad lacag ka sameeyay waxba haysan xasaga guursan weyd waad gabowday oo ma u dhalweys nolol samaysan inna waxna ma tiri nololna ma samaysan markuu waxay tiri walaalaha qaarkood wallahi billahi tallahi ku daalanay tiri anigu inta ku daalay waanu qof weyn u tagay bay aniga ila yaabeen tinaa wal lacagta haysatay yaa wax tari jirtay yaa wax siin jirtay waxa shaqaysan jirtay dibadda xoolaha ka keentay waad gabowd sirqa wayeel baan noqotay waxa gursan weys cid wax tari jirtay ma jirtay aniga bay ugu dhaqaaqeen tiri marka walaalayaal waxay tiri gabdhaha number 1 naftaada iyo noloshaada bay urtigsi waa la ogaaday dadka reerka family wax tar laakiin noloshaada ha u baabi'in gabadhaas wallahi been ku sheegay qof weyn ahayd kaamirada igala hadasho way iska tustay qisadaas ay u dhacday tir marka dadka qurbaha joogo way inay digeena ma dalka dadka joogo in lagu diraa laakiin noloshaada qof ha u baabi'in waalidka siinta muxuu ku qasbaya walaalka oo dan wata walaalka reer leh ilmo dhalay oo samaysanay wuxuu ku leeyahay door waalidka qaarkiis u shaqay sida gabadha ku dhacdo kale
beel waxaa kaa yaryar waxaa laga yaabaa inuusan weligii ku dhihin guurso inuusan weligii ku dhihin nolol samayso waalidkan waxay ka tahay jacayl ilmihiisa uu jecel ma ku nabca adiga laakiin wuxuu isleeyahay ilmahaaga baahan cunug gabar ama wiil wax uu yahayba u qasab cunugaaga kale waalidku way dhacdaa laakiin waalidka inta badan cunug ba iska jeclaadaan qalbigoodu jeclaadaa laakiin ilmaha waxaa fiican in baalas laga dhigo in ilmaha la simo in cunug kale aada u dulminin hadduu weeye iyo hadduu yaryahayba garateen soomaaliya dulmiga ma fiicno guryaha ka dhex jiro qaarkood oo waalidkood maha ku sameeyaan in gabar maskiina la or soo shaqeey ay wiilal maaragtay maamadu ay wiilasheeda gabdheedana ku darsatay oo reere ay kala yeeshaan oo iyada gabadha mustaqbalkeeda iyo lifekeeda iyo nolosheeda oo dhan loo baabi'iyo in ay caruurtaas koriso inay caruurta wax u qabato walaalka waxtar yes xaquuq ugu leeyahay wax sii ma xumo laakiin adigana noloshaada ha u baabi'inin أنا وإيجا طلب وإيجا فكرت وحاسين كرتسي وكو صدقه أو كان لكن رشة هذا بابين ويمكن وحاول قد جاية قبل صدق الصدي لو ذاكتي فكرت وحاول قدر سنة ويمكن وحاول قد جاية عنو جاية هاو بابين عنو كلا سن سكمال بكسول بحين هذا وضع الشيء سجال بلد بعلوش كسوس دي واد والله ضي واد فولتي وكوسمي هدوم متبارك ويا أجعشه أنكرنا أدعي إنه إلهي بارك هذا لكن ما أهم هدو بارك ويهنا ده كل دول استنس وما له الحكومة ماذا مسكين كان مسكلا كرا له هدو عنك مسكين هاي وهذيك بارك وياه المها كان إنه أدل يسدو قصدت ما أهم مرقول على يالو أنت صاير يقب حياة واردة قاركود المها أدل يان ما في عنو وعيو عنو جاي إنه عنو المستقبل سمايستو عنو كان عم جبر عم ويل أحب جبر مسكين أتراد ناولي جاب ويل كي وصل الشقي بيل أما جبر يد وصل الشقي هذا هو استنتاج جت بيل عيالك أكريه تيجوا بالنور بيرتا مستقبل بيرتا مركا حاسة لجوان توبو وارد كنت أسوي شيء جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام على الصومالية ما شاء الله خير بدنا يجتهي إن هلا جوان توبو أرنت أصيدا